qof 24 saacadood ka badan haysta miyaad aragtay maya dadku qof 24 saacadood buu haystaa waa mawrid go'an muddadaad noolaanaysaana waa muddo go'an 30 sano 50 sano 60 sano intii alla kaa siiyaaba waa waqti go'an intaa dhaafi maysid kan labaad يعني ما مورد تجدد سميه صوع عصبوناده كان لباد waxay yiraahdaan waqtigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan kaydka aqbalin hanti hadda daqato waxaanad imka cunaynin ama waxaanad hadda u baahnayn meel baa la dhigtaa waqtigu kayd ma galo ku kayd samaayo waa mar labaad tacwiid ma galo bedel ma galo nolosha waxa kale oo dhan waxa laga yaabaa wax badan oo kamid ah waad iibsan kartaa waa lagu siin karaa waa deynsan kartaa laakiin waqtigu intan midna ma galo dadka maalqabeynka haddii waqtiga la iibsan karo dee waynaga wada iibsan lahaayeen waxba waynama soo hadhay marka waqtigu iib ma galo kayd ma galo maxaa la yidhaahdaa amaah ma galo sisma ma galo waqtigu bay yidhahdeen waa mawrid aad ku qasban tahay inaad joogto yani ama si xun u isticmaal ama si wanaagsan u isticmaal ama lumi ama ha luminin waa kugu qasab inaad maanta nooshay mar haddaad nooshay maanta waa kugu soconaysaa cadaadii soo baxday waxay dhahaan waqtigu waxa qiimaha u sameeya waxa ka mid ah sida looga faa'iidaysto ساعدي أنا كفايدة سنوات بلا قيمة ساعدت إنتاج وحصول صارتي علم هالنقطة مال هالنقطة ساعدت وحصول صارتي وساعد قيمة له ومدة مجهولة بين هذا أنا أتقرنين قرطة تنكي تجدونتو تتكسي سولي حاجة دبا وقتي ولكوسي هراي وبا نفتك بحدا قف السنة هدا يهابا حيصا oo ku xisaabtama inta badan ma jiro si kale haddaanu tilmaamo hantida dhabta ah ee aad haysataa waa cimrigaaga cimriguna waa waqtigu hanti kale ma lihid hantidaada dhabta ahi waa cimrigaaga سيقول الإمام حسن البصري رحمة الله عليه وحورنجري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك بني آدم وحطهي مالمه مركز طو مالين تكتب بڑا ديگا كميدة باتگي مال ما ليسو گئي وماتي مركز طو مالين كا تكتب بولي بڑا ديگا كميدة اياتگي marka waqtigu qiimo weyn ku sameeyaa second square qiimo ku sameeyaa talan dadkan orda ala ida boqolka mitir hebel baa qaaday muxuu ku qaaday 9.34 of a second maxaa markaa isaga agtiisa qiimo leh points of a second la jajabiyay ayaa laga yaabaa inuu ku badiyay marka jajabka yar second jajabkii ayaa isaga agtiisa qiimo weyn kale markuu training sameeyo hadduu soo gaabin karo jajab second la jajabiyay barkii hadduu soo gaabin karo waa wax weyn waqtigu markaa waa wax u baahan inaynu si xooggan uga fikirno dadka bari iyagoo aan waxba qaban si u fadhiyay ayuu waqti ka lumay u dabaaldegaa oo hal oranaya waa maxay waa birthday-gii buu leeyahay maanta uu boodboodaya waxay hadalaad xisaabtanto tiraahdo waryaa wari magana sanad baa dhaafay sanadka maxaa soo saaray sanad cimrigii ka mid ah hadda ay dhaafay maxaan sanadka soo kordhiyay maxaan noloshayda ku daray qofka muslimka waxa looga baahayay marka inuu waqtiga si fiican u garto taas waxay keensanaysaa inaan waqtigu ka lumin hadalkaaga lumin sheeko kaaga lumin
bini aadam aad ka warranta kaaga lumin khasaare inaan waqtigaagu gelin inuu adduuniya aakhira midunku ugu jiro nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo qadiyadda inugu baraarujinaya buu wuxuu leeyahay xadiidka bukhaari nicmataani maqbuunun fiihima kathiirun min annaasi alsixatu waalfaraaq waxaa jira buu nabigu yidhi laba nicmo oo dadka intooda badani ay ku kadsoomeen qabni uu kaga dhacay dadka intooda badani laba nimco oo aanay dareemin baa jira buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo waa maxay labadaa nimco haddaad dareemi lahayd dee waad ka faa'iidayn lahayd laakiin marka aanad dareemin qiimo badan agtaada kuma leh labada nimco maxay kala yihiin kow nabigu wuxuu ku tilmaamay caafimaadka bini aadamku markuu xanuunsado ayuu qiimaha caafimaadka gartaa laakiin markuu iska fadhi weyn iyo ordayey hadaad tidhaahdo warbalwarrabo maxaan hayaabaabu ku leeyahy laakiin hadduu xanuunsado wuxuu ogolyahay hantidiisoo dhan inuu caafimaad siisto hadduu xanuunsado bini aadamku wuxuu ogolyahay wuxuu haysto oo dhan inuu caafimaad ku iibsado laakiin marka uu caafimaadka haya ma dareemo cidlo kaga lumaa ka labaadna wuxuu yidhi firaaqa wakhtiga aad haysata ee dheeraadka ah wakhti firaaqa inaad hesho waa nicma laakiin dadka badh baabay niqma ku tahay wakhti dheeraada waayo wuxuu ka fikerayaa waar xaggaynu wakhtiga ku dilaa waayo wakhtigiisii inuu dilaa buu doonayaa oo kan qayilaya kan kubadda daawanaya kan tv-ga daawanaya kan waa wakhtigii buu garan waayo wuxuu ku qabto marka sidii isagoo aan dareemin uu u dhaafi lahaa buu rabaa inuu dareemo abaaba dhib ku ah inuu maalintiisii joogo ama saacadahan inuu joogo inuu dareemo ayuu dhib u arkaa marka inuu isdhaafiyaa buu doonayaa si awgeed buu nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa laba nicmo oo dadka inta badan ay ku kadsoomeen oo aanay dareemaynin waa caafimaadka iyo firaaqada buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaanu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam axaadiista ibnu mascuud iyo mucaad ibnu jabal iyo abi barza alaslami iyo saxaabadaasoo dhamm ay soo warinayso aakhiro su'aalaha la isweydiinayo waaweyn inay ka mid tahay wuxuu nabigu leeyahy qofka bini aadamka gomadihiisu ma dhaqa yacni ilaahay buu hortaagnaanaya lama dhaqaajinayo ilaa uu iyo arrimo dhowra uu ka jawaabo mooyaane arrimaha la weydiinaya uu ku qasbayay inuu ka jawaabo maxaa ka mid ah can cumrihi fiima afnaah noloshii aan ku siiyey maxaad ku qabatay baa ilaahay ku leeyahy waan ku nooleeyo wakhtaad haysateen maxaad wakhtigii ku qabatay haddana su'aal labaad baa imanaysa bay culammadu yidhahdaan ama axaadiistaasi ku sugan oo tilmaamaysa wakhtiyada ka mid ah oo isagu ka mudan wakhtiga kaloo dhan wa can shabaabihi fiima afnaah aw fiima ablaah waxaa kaloo la weydiinayaa dhallinyaronimadiisii iyo wuxuu ku bixiyey dhallinyaronimadu waa wakhtiga uu qofku wax waliba u korayaan caafimaadkiisu fiican yahay mas-uuliyaadka saarane ay yar yihiine kale waa wakhtiga baynu odhan karnaa uu qofku isagu wakhtigiisa leeyahy markaad weynaato bini aadamka calaaqaad kale leeday baa tiro badanaya oo waagu markuu baryo adigoo xaggaa u socda intaasoo dadi kuu imanayana arrinka wax ka qabo kan wax ka qabo xaggan baa soo bannaanaatay xaggan caynka wakhtigaaga waa cid kala kula isticmaalaysa laakiin markaad dhallinyarada tahay cidi kulama leh aday kugu xidhan tahay waxaad samaynayso cid badanoo wax kaa sugaysaa ma jirto sida awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam aakhiro laba su'aalood baa ka mid a su'aalaha la isweydiinaya midi waa cimrigii oo dhan iyo xaggaad ku bixisay midna waa qaybtii ugu qiimaha badnayd cimriga ee ah wakhtigii caafimaadka iyo dhallinyaronimada iyo xoogga iyo friiga aad ahayd maxaad ku qabatay nabigu calayhi salaatu wasalaam masaladaasi axaadiis badan buu ku soo celcelinaya aakhirana cimrigaasi waa waxa lagugu xisaabin doono kullama uu kordho raasalmaalku
xisaabtuna way